Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada qodobada wararka raadiyo wadaag subaxnimadan idin hayo. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo amar ku bixiyay in muddo 15 maalmood la xiro goobaha waxbarashada ay ku yaalo gobolka Banaadir iyo gobolada dalka. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Soomaaliya oo fariin u dirtay shacabka ku dhaqan dalka Soomaaliya. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Soomaaliya oo fariin ku aadan cudurka coronavirus u dirtay shacabka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kulamo ka wada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Howlgallo ka soconayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. In la xalliyo khilaafkii kala dhaxeeyay maamulka Puntland iyo dowladda oo ku aadanay ardayda wax ka barato deegaanada maamulka Puntland. Intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee raadiyo wadaag.